السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحيران كنالك برادة بلشة سoo dhawaada muuqaalkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sidaad xirfadda dhageysiga ama listening skillska uga baran karto website-ka British Council waxaan u qaybin doonaa muuqaalka 3 qaybood maadaama uu yara dheer yahay qaybta koowaad waxaan ku eegaynaa sida ugu diyaar garoobi karto casharka ama waa preparation section qaybta labaad waxaan ku eegaynaa ama ku sharaxaynaa casharka naftarkiisa ama waa lesson section qaybta saddexaad waa qaybta u damaysana waxaan ka wada shaqayn doonaa weydiimaha ka yimid casharka ama waa task section saddexda qayboodba waxaan soo gelin doonaa toddobaadkan gudihiisa haddii alla idmo ila socod wanaagsan dhammaan asxaabteena saaxiibayaal soo dhawaada waxaynu eegi doonaa qaybtii aan idin soo sheegay oo ka mid ah website-ka British Council sida aad uga baran karto ama uga improve garan karto qaybta listening-ka oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah barashada luqadda qaybtan way horta listening-ku hore waxaan maaragtay muuqaal uga sameynay qaybta writing-ka sida aad u improve garan karto muuqaalka hadda xiiseyn soo daawan kartaa qaybtan ayaynu maanta eegaynaa listening-ka okay saaxiibayaal waa qaybtan si aad u jeedaan wax ku siinayaa dhammaan levels level A1 level A2 level B1 level B2 and level C1 buu siinayaa dhammaantood ma soo wada koobi karno laakiin mid kastana waa inaad ogaataan wuxuu leeyahay casharo u gaara mawduuca naftarkiisa wuxuu sii kala leeyahay subtopics marka bal waxaynu soo qaadan doonaa levelada mid ka mid ah baynu cashar ka soo qaadan doonaa casharkaas baynu maaragtay qaabka loo practice gareyn karo baynu example yar ka fiirin doonaa marka qaybtan baynu eegaynaa B1 listening cashar ka mid ah B1 listening markaan halkaan tagno soo jeedo wuxuu ku leeyahay cashar dooro just a listening lesson waxaad dooranaysaa cashar baad dooranaysaa tusaale casharkooda waxaa la yiraahdaa a phone call from a customer waa maaragtay wicitaan uu sameynayo qof maaragtay macmiil ah qaybtan oo kale waa student discussion waa dood u dhaxaysa arday ay sameynayaan qaybtan inagu eegayno waa qaybtan oo laba xiriirta xataa mawduuc ku saabsan qaabka aad u improve gareyn karto listening-kaaga marka qaybtan baan tusaale uga soo qaadanaynaa aynu click siino marka qaybtan ayuu keenayaa qaybtan wuxuu leeyahay listen to the English teacher talk about listening to practice and improve your listening skills wuxuu leeyahay waxaad dhegeysataa macallin ka hadlaya sidaad xirfadan aan muuqaalkan ku sameynano listening-ka ah sidii aad u practice gareyn lahayd isla markaasna aad u improve gareyn lahayd wuxuu leeyahay do the preparation task first then listen to the audio and do the exercise okay wuxuu ku leeyahay marka koowaad waxa sameysaa preparation oo qaybtan ayaa preparationka loogu talagalay kadibna waxaad dhegeysataa audio-ha waa qaybtan audio-ha la inoo sheegayo codka sidoo kale marka ugu dambaysa waxaad sameysaa exercise-ka ka shaqeeya waa si lamid ah inta badan ku sameeyaan casharada ay diyaariyaan website-ka ku jira marka koowaad waxaad helaysaa fursad ah bal inaad sii ogaatid waxa maaragtay aad rabtid inaad dhegeysato casharka wax ku saabsan oo kale oo hordhaca lagu siiyo oo preparation ah kadibna casharka loo tago kadibna casharkii inaad fahamtay in kale si aad u tijaabiso inaad ka shaqeyso exercise okay let us do the preparation first halkaan baynu click siinay symbolkan marka hore kor buu u jeedaa markaan click siiyo hoos kor buu u jeensanayaa dabcan oo muujinaya inaanu furnay qaybta preparationka okay preparationka waxay leeyihiin match the words with the definitions erayada waxaad ku aadisaa maxaan ku rahdaa definitionskooda ama qeexitaanadooda okay erayga koowaad aan haysano waa to admit waxay noqonaysaa qirasho marka to confess ayaa la macnaa okay erayga xigowna siinayo waa an action to achieve a result waa waxa weeye waa fal lagu gaarayo natiijo okay maxay noqon karaysaa marka waa istiraatiijiyad ama khidad bay noqonaysaa okay to behave if something is true inaad ka soo qaadid inaad wixii wax xaqiiqo ah oo kale inaad ka soo qaado waxay noqonaysaa to pretend inaad ka soo qaado
ereygaas ayuu qeexitaan u tahay. A situation where the result is very important waa xaalad halkaasoo natiijadu ay tahay mid aad u muhiim ah, waa high stakes waxa loo yaqaan, ama barnaamij natiijadiisu ay sareyso. Okay, the water that comes from your skin when you are very hot waa biyaha ka soo baxa jirkaaga markaa tahay mid aad u kulul. markaa waa sweetka ama dhididka waxa loo yaqaan baa ereygaas bay qeexaysaa phrase-kaasi. Okay, to give the main points waa inaad bixiso ereyada muhiimka ah keliya, waa to summarize bay isku macno yihiin ama inaad soo koobto. Okay, forms and documents waa paperwork, waa waxa loo yaqaan paperwork. To make something into smaller parts wixii inaad usii kala qaybsato qaybo yaryar waa to break down something, waa to break something down. Okay, so let us check if they are correct. So waxaan eegaynaa bal inay saxan yihiin. Finish baan dhahaynaa. Okay, waa laynoo saxa qaybtaas. Okay, markaan dhamayno preparation oo preparation aan samaynay waxa weeye preparationkaana hadda erayadan waa erayada aynu ku arki doono barnaamijkan aynu dhegeysan doono, waa erayada ugu muhiimsan buu qaybtan preparation ahaan kuu siinaya si aad macnahooda usii ogaatid. Okay, qaybtaan aynu iska xirno marka.